waxaa maalmihii ugu dambeeyay roobab xooggan ka da'ay degmada Wanleweyn roobabkaasi oo ragaadiya ama hakad ku sameeyay wadooyinka degmada Wanleweyn waxaa wadooyinka qayb kamid ah xiray roobabkii iyadoo halkaasi biyo buuxsamay halka qaar kalena isla markaasi dhooqa ay buuxaan sidaas darteed dadka ayaa waxa ay ku kalifaysaa inay wadada cirifkeeda ay maraan ama ay dhooqada dhex baraan kan mid kamid ah dhalinyarada ku nool degmada Wanleweyn oo ka warbixinaya roobabka iyo sidoo u saameeyay sidoo u ragaadiyay marka hore ku soo TV koonfur galbeed iyo magacaaga saddexan ما شاء الله كدوية تيفي كفر قلبات ما شاء الله أنا بقى عبد القني محمد ما شاء الله وكدوه هاي اوكي روب كده اي سيده واركتا سيدان idin saamiyay والله ما شاء الله تبارك الله روبيو قودي او ما شاء الله او انا كمد غاريليدا او باورو او موري دنكان ku shaqeeyaan ما شاء الله maalmo ma waa shaqeeyne marka wadada roob biyo iyo waxaas iyo dhiiq iyo marka intaas ku shaqeeyay wayne marka kullee meelas baawar dama qaadaw law baar dam isgar ma warto hal baawar kale shay maray marka inta kale baawar waa isugtu way marka ma sha Allah marka degmada Wanleweyn ma baq osane inta wadada inta saamiyaan oo ma sha Allah oo walba qabadaan okay marka waxa jirtay maalmo hore iyadoo wadada la cartuurayo cartuurkaasi ma maamulka sameeyay mis arin kale ahayd والله ما شاء الله dhalinyarada oo baawreyda intaas awaawil kadib ma sha Allah ayaa is wada darsadeen is afahmeen kadib wadada sahamiyeen wadada ka tarku dhiga ma sha Allah aad iyo aad waa roobkan Ilaahay mahadiis weeyaan Allah subhanahu wa ta'ala maanta iskale roobka noo keenay muddo badan oo kuleel ku jirnay waana barwaaqaysanahay degmada hadda aad iyo aad weeyaan waa muhiim والله هذا قصار وحاول ودوينك وحرنا ودقوين iyo maxaa la haysi baawartii iyo gaadiidkii iyo shaqeeyna isku xiran maxaan ku yiraahdaa dadka hadda wax kala socdo mooyaane wax kala caadi waa والله dad bulshada waxaan u macaan lahayd inay macnaha maxaan ku yiraahdaa inay sidii hadda dhiiqooyinka loo hortagi lahaay oo maxaan ku yiraahdaa oo ciid la keen lahaay oo dadka ay shaqadooda si wanaagsan u socon lahayd والله hadda waa sidii hore way ka dhaamaan wadooyinkan oo burburkii hore maahan hadda inta roobka imaan kadib ciid lagu fadhiyo meeshan hadda sidii hore waxa waa dhiiqooyin hore ahaan jirta laakiin sidii hore way ka wanaagsan tahay oo sidoo wanaagsan lagu jira hadda waxaan rabnaa inaan dhamaystirno dilayna sidoo kale waxa ay shacabka reer Wanleweyn baaq culus u direen maamulka degmada Wanleweyn iyagoo ka codsaday inuu maamulka dhiso wadooyinka maragaadiidka iyo kuwa kale ee markaasi biyuhu ay buuxaan isla markaana dhooqada ay buuxaan sidoo kale waxa ay dadka dantu ku kalifaysaa inay maraan wadada cirifkeeda halka aad mood inay yara qalalan tahay halka qaar kale ay dhex marayaan dhooqada dhexdooda cabdi qani maxamed xasan TV-ga koonfur galbeed Wanleweyn